Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Talooyin ku socota dhalinyarada. Halkan waxaan kula wadaagi doonaa 10 shay oo haddaad samaysid wax weyn ka bedeli doona noloshaada fadhiida noqotay. Ama xitaa kaa dhigaysa qof noloshan guusha uu doonaya ka xaqiijiya. Ku soo dhawaada aqoonsaad. Magaciigu waa Cabdifitaax Aadan. Qodobka koowaad. Jooji isbarbardhigida naftaada aad la barbardhigaysid dadka kale. Adduunkan Allah subxaanahu wa tacaala uma talagelin in dadka dhan ay hal nooc noqdaan ama isku dhaqan iyo dabeecad noqdaan. Qof kasta wuxuu leeyahay shakhsiyad ka gooni ah ama ka gedisan dadka kale. Qof kastana wuxuu leeyahay ceebo iyo meelo uu ku fiican yahay. Adiga saad u noqotid hamigiisa mid ka dhabeeya. Uma baahnid hebel oo kale inaad noqotid. In aad kala mid noqotid dabeecadda, duruufaha iyo xaaladaha, ama xitaa labiska iyo dhinac kasta oo ka mid ah nolosha. Haama xumo. Qof waad kaga dayan kartaa dhinaca wanaagsan, sida hebel inuu bartay wax anfacaya oo noloshiisa wax ka bedelaya. Adna waa samayn kartaa inaad sidii hebel oo kale aad bartid wax noloshaada hormariya. Laakiin maaha inaad noqotid qofka oo koobi ah oo halkaa taagan. Hebelka aad iska dhigaysid adduunka asagoo asal ah ayuu joogaa. Loomana baahna mid koobigiisa ah. Saa daraaddeed ahaw qofkaa tahay, ha noqon qof kale. Qodobka labaad. Yeelo xirfad. Adduunku wuu isbedelayaa, waqtigu wuu isgurayaa, adna cimrigaada wuu socdaa. Waxaa muhiim ah inaad leedahay xirfad kaa soocaysa dadka yaacaya. Qofka hadduusan xirfad lahayn waxaa adag noloshan adduunka inuu horumar ka gaaro. Ogowna adduunka isbedel weyn ayaa ku yimaanaya waqtiba waqtiga ka dambeeya. Shaqooyinka shalay jiray qaar badan oo ka mid ah maanta ma jiraan. Sababtuna waa isbedelka ku dhacaya caalamka ee sababtu uu u yahay tiknoolajiyadda caalamkan. Shaqooyinkii ablaga soo gaarka ahaa ma shaqayn doonaan adduunkan. Shaqooyinkii ablaga soo gaarka ahaa ma shaqayn doonaan adduunkan xawaaraha aadka u sarreeya ku socdo. Saa daraaddeed waa inaad kasbataa xirfad la jaan qaadi karta adduunkan horumarka xawliga ah ku tallaabsanaya. Qodobka saddexaad. Isbedel. Isbedel oo waxaad beddeshaa caadooyinka xunxun ee aad leedahay. Isbedel oo ka guulaysa cabsida aad ka qabta mustaqbalka oo samee kuna dhaqaaq waxaad ku riyoonaysid inaad qabata. Ogowna cabsida waxaa weeye cadowga ugu weyn ee kaa hortaagan inaad mustaqbalka ku noolaato nolosha aad ku riyoonaysid. Waxaad doonaysaa inaad wax cusub barato, laakiin waxaad ka cabsanaysaa caqabadaha aad kala kulmi doonto wadada aad shaygaas u maraysid. Waxaad doonaysaa inaad beddeshid shaqadan aad qabanaysid ee wax horumar ah aadan ka gaarin. Laakiin waxaad ka cabsanaysaa caqabadaha aad wajihi doonto. Waxaad ka cabsanaysaa inaad heli doonto beddelkan dhaamo. Iska ilow cabsida. Isbeddelku waa muhiim. Qodobka afaraad. Samayso caadooyin wanaagsan. Waxaa jirta oraah dhehaysa bani aadanka maba ahan waxaan ka ahayn caadooyin isku tagtagay. Qofka wuxuu noqdaa caadooyinka uu u sameeyo sida maalinlaha ah. Haddii caadooyinkaadu xunxun yihiin, dabcan adna qof xun ayaad ku soo bixi. Haddii caadooyinkaada fiican yihiin, waxaad ku soo bixi qof wanaagsan. Saa daraaddeed isku day inaad samaysatid caadooyin wanaagsan, sida inaad wax akhrisid maalin kasta, inaad wax cusub baratid, inaad jimicsi samaysid, iyo wixii la mid ah caadooyin wanaagsan. Caadooyinka wanaagsan mustaqbalka waxay kaa soo saarayaan qof qiimo leh, qof nolosha ka gaara hadafka uu ka lahaa. Adiga waxaa tahay caadooyinkaada. Qodobka shanaad. Jooji noloshan qorshe la'aanta ah. Samaysad jadwal iyo qorshe maalinle ah, ku billa ah iyo mid sanadle ah. Subaxii markaad soo kacdid ama xitaa intaadan saaxan ka hor habeenkii u qorshaysa maalintaas. Tallaabadan waxaa kaga hortagaysa in waqtigaada uu ku lumo meel cidla ah. Jadwalka wuxuu kaa caawinayaa in noloshaada mar walba ay kadis joogto ah ku jirin. Markaad tahay qof jadwal leh, hawl kasta waxay kugu imaanaysaa adoo u diyaar garoobay.
laakiin markaad jadwal la'aan tahay wax walba oo maalintaas la kulanta kadis ayay kugu yihiin. Jadwalka wuxuu kaa caawinayaa inaad cashir ka baratid fashilkaada lana xisaabtanta nafsadaada. Tusaale, bishaan waxaad qorshaysatay inaad barato waxaas iyo waxaas oo aad qabato waxaas iyo waxaas. haddii markii ay bisha dhammaata aysan kuu qabsoomin wax ka mid ah waxyaalihii aad qorshaysatay, nafsadaada waad kula xisaabtamaysaa maxay ama sabab aad hawshan u fulin weyday. halkan waxaa kaaga soo baxaya cashir oo ah sababtii kuu diiday in hawsha aad qabata. waadna iska ilaalin doontaa caqabadaas inaad mar kale la kulanta, ama waxaa kuu soo baxaya in hawsha aad qaban kartay wax sabab ahna aysan jirin. markaana nafsadaada waad kula xisaabtamaysaa, mas'uuliyaddana adaa dusha u ridanaya. jadwalka laguu sheegaya ma ahan waxaan ka ahayn in aad jeexatid jidkii aad guusha u mari lahayd. waxaan soo gaarnay gabagabadii muuqaalkeena maanta. waxaan filayaa inaad wax uun ka faa'iiday. fadlan adna raadkaada reeb, like saar muuqaalka, hoos commentiga inugula wadaag ra'yigaada. muuqaalka share dheh ama la wadaag asxaabtaada. haddii aad nagu cusub tahay, ku soo dhawow kanaalka Aqoonsaad, subscribe ku dhufo, gambaleelkana furo si aad u heshid muuqaaladeena cusub. mahadsanid. waxaan ku kulmi doonaa muuqaalka xiga hadduu Alle idmo. inta ka horeysa waxaan kaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.